inta aana filimka bilaabin waxaan xasuusinayaa inaad YouTube-ka subscribe dhahdin muuqaalkan aad like saarto waa ku mahadsantahay daawashadaada. Filimkeen waxa uu ku bilaabanayaa habeenkii xilli dhexe Maaj oo dhaawacaya magaalada dhexdeeda ka ordaya isagoo boolis ka baxsanaya wuxuuna ku dhacaa dhulka meel cidla ah wuuna qoslaa si lama filaana dhiiggiisa ayaa dhulka ku daatay dhiiggiisa oo dhulka ku daatay ayaa cirka aadaya waxaana soo baxaya nin huwan mara madow oo wajigiisa daboolan yahay ninkaas ayaa Maaj u sheegay inuu badbaadin doono haddii uu daacadnimo ballan qaado Maajna door kale male wuuna ogolaanaya ninkii ajnabiga ahaa ayaa isticmaalaya awoodiisa wuxuuna kor u qaadaa Maaj isagoo fulinaya heshiiska taasoo keentay in jirka Maaj iftiimo uuna la qaylay xanuun darteed markii booliska ay imaadaan waxa ay helayaan dhiig badan oo ku daatay derbiga dhibaato weyn ayaana magaalada ka dhacaysa dadkuna waxay u dhimanayaan si baahsan iyagoo maqluuq cabsi leh oo weerarayo ninkii Maaj qariyay si degan ayuu u daawanayaa Jackna wuu qaylinayaa dab weyn ayaana wax walba gubaya laakiin waxaa la ogaanayaa inay tanu tahay riyo uu arkay nin harib ah oo lagu magacaabo Jan wuxuu isla markii ururinayaa alaabtiisa wuxuuna u sheegayaa macalinkiisa in aabihii oo ahaa sixroole oo lagu magacaabo Wajin uu ku soo noqday dhulka sidaa darteedna uu baxayo si uu u joojiyo dhanka kale Jack iyo qoyskiisu waxa ay yimaadeen Bangkok si ay fasax u qaataan balse Jack waxa uu sii wacayaa shaqada taas oo keentay in xaaskiisu canaanato kuna xasuusisay inuu qoyskiisa mudnaanta siiyo Jackna wuxuu ballan qaadayaa inuu isbedeli doono isagoo xasuusinaya waayihiisii hore ee booliska ahaa marka ay gadaal u jeestaan waxay ogaanayaan inay gabadhooda aysan la socon labada lamaana waxa ay bilaabayaan inay si degdeg magaalada uga raadshaan ugu dambeyn waxa ay Luul ka heleen iyadoo la hadlaysa Jan bundada dusheeda waxayna canaantaan Luul iyagoo u mahad celinaya Jan ayaa ka yaabaya isagoo aqoonsada wajiga iyo magaca wuxuuna Jack ugu yeerayaa ilaaliyaha albaabada isagoo uga digayo inuu wajihi doono caqabado waaweyn isla markaana uu wax walba waayi doono laakiin Jack wuxuu u maleynayaa Jan inuu waalan yahay wuxuuna hore u wadanayaa qoyskiisa moolka ayay tagayaan Luulna waxay wasaq ku aratay dharkeeda sidaa darteed Baraan ayaa u kaxaysa musqusha isla waqtigaas Maaj ayaa soo galaya moolka in ayuu durba tooganaya dadka ayaa argagaxaya waxayna bilaabayaan inay cararaan Maajna waxa uu sii dilayaa dad aan waxba galabsan dad badan waxay u cararayaan albaabka ay ka bixi lahaayeen laakiin Jack wuxuu dhex marayaa dadka si uu u gaaro qoyskiisa wuxuuna u sheegayaa inay musqusha ku dhuntaan boolis lagu magacaabo Irad ayaana soo galaya moolka Jackna si taxaddar leh ayuu dhaqaaqaya isagoo dadku u yeeraya inay isqariyaan markii uu Maaj u mashquulo oo uu arko bombale dhiig leh Jack ayaa soo baxaya isagoo bastoolada wato wuxuuna ku amrayaa Maaj inuu hubka dhigo Maajna wuu dhoola cadeynaya wuxuuna bombalaha kula hadlayaa cod caruureed isagoo ku jeesjeesaya Jack inuu yahay American isla markaana sheegaya Luul Jackna waxa uu hanjabayaa inuu dilayo hadduu is dhiibin Maajna waxa uu furayaa risaas taasoo Jack ku qasbaysa inuu isqariyo gabadha ooyeysa oo ku dhuumata meel ayaa isku dayaysa inay isticmaasho telefoon balse Maaj ayaa toogta banaanka boolis iyo dardamiyaal ayaa dhooban Maajna waxa uu markale la hadlayaa bombalaha markii uu mashquulo Jack ayaa soo baxaya oo risaas ku ridaya Maajna waxa uu dhulka dhigtay jilbihiisa booliskii Iradna uu ka dambeeyaa Maaj wali wuu degan yahay wuxuuna Jack uga mahad celinayaa dilka isagoo leh hadda xafladii way dhamaatay wuxuuna markale ugu yeerayaa ilaaliyaha si lama filaan ah jidhkii Maaj waxa uu bilaabayaa inuu gubto kadibna wuu qarxa taasoo sababta in dhismaha dhan uu qarxo dabku waxa uu ku fidayaa dhammaan magaalada Baraan waxay gabadheeda saartaa musqusha banaanka ayayna u ordaan balse waxay arkayaan bas sil galay iyo dad isdilay xitaa dadamiska qof ayuu mid ku dilayaa Baraan iyo Luul dooq kala meestaan waxayna ku laabteen moolka markay si taxaddar leh u dhex socdaan moolka waxay arkaan nin madaxa ku garaacaya miis iyo meyd hor yaal nin waalan ayaa ka soo baxa geeska wuxuuna isku dayayaa inuu weeraro Baraan waxay ku tuurtaa caagta dharka la gashto kadibna gacanta caaga ayay ku dhufataa waxayna labadooda korayaan jaranjarada korontada balse rag kale oo waalan ayaa daba socda Baraan waxay Luul saartaa dhinaca banaan ee jaranjarada iyaduna si caadi ayay ugu soo degtaa iyadoo caagta difaac ka dhigaysa Luul waxay gaaraysaa dabaqa kale nin ayaana qabta Baraan oo cabsi darteed u xanaaqda ayaa ninkii weerarta oo badbaadisay gabadheeda way ordayaan oo waxa ay helayaan albaab dambe waqtigaas bas ayaa istaagsan darawalkii waa ka soo baxa balse qof kale ayaa weeraray dagaalna uu ku bilaabmaa Baraan waxay isku daydaa inay la baxsato Luul balse magaalada meel kasta waxa ka socda rabshado rasaas iyo gubasho iyo shilal markay orod badan sameeyaan waxay ku dhuntaan dukaanka cuntooyinka taleefankii Baraan ma shaqaynayo waxayna si taxaddar leh u dhex martaa dukaanka iyadoo iska indhatiraysa meydadka si ay u isticmaasho taleefanka dukaanka balse midkaasna uu shaqay weynaya waqtigaas nin muuqaal xun leh ayaa dukaanka soo galaya wuxuuna tuurayaa alaabo dhowr ah ka hor inta uusan hubin meydka yaala markaas ayuu bilaabayaa inuu dukaanka dhexdiisa baaro sidaa darteed Luul waa inay dhaqaaqdaa si aysan u soo muuqan nasiib darro Luul si lama filaan ayay kor ugu neefsatay waxaana arkay ninkii waalnaa markuu doonayay inuu weeraro Baraan ayaa dhabarka ka weerarta waxayna ku dhufataa dhulka dhanka kale Jack iyo Eric ayaa soo toosa iyagoo aan fahmin sida ay u badbaadeen maadaama ay qarax u dhawaayeen waxa kale arkayaan wax meyd oo u dhow inaysan jirin Jackna wuxuu arkayaa qof u taagan meel u dhow balse waa u muuqo wayha markuu istaago Eric wuxuu arkayaa raad dhiig ah oo u muuqda kuwa hore markay maqlaan dhawaaqa waxay u dhaqaaqeen inay eegaan waxayna heleen haweeney mudi wadata markay soo jeesato wajigeedu waxa uu isu bedelayaa mid bahal ah waxayna ku boodaa Eric say mudi ugu disho Jack ayaana rasaas furaya balse xabadu saameyn kuma yeelan haweeneydii waxay markaan weerartaa isaga dagaal ayaana bilaabma dadaal dheer kadib Jack wuxuu madaxa ugu dhuftaa haweeneydii taasoo sababtay inay mir beesho kadib Jack uu cararaa oo uu isqariyaa balse haweeneydii si degdeg ayay soo toostay waxayna bilaabaysaa raadinta si lama filaan gacmaheeda iyo lugaheeda ayaa dheeraada iyadoo saqafka dusha kaga socoto Jack wuu dhuntaa balse ugu dambeyntii way aragtay banaanka ayayna u jiidaa wuxuu isku dayayaa inuu tuugto balse xabadii ayaa hubka laga saaray asigoo isku dayay inuu midi ku dilo Jack oo niyad jab qarka u saaran ayaa isdifaacaya wuxuuna awoodaa inuu iska tuuro kadibna cararaa wuxuu ordayaa musqusha balse
balse ma arka qoyskiisa. Markuu moolka intiisa kala baarayo, haweenaydii bahalkeed ayaa mar kale soo weerartay, wuxuuna ku dhuftaa kursi si uu u baxsado, balse si degdeg ah ayay jidku u hor istaagtay. Jackna wuxuu qaataa fiilooyin ag yaala, wuxuuna ku xirayaa derbiga isagoo dhowr jeer ku dhufta feer, balse waxba uma tarto. Sidaa darteed wuxuu go'aansaday inuu iska dhaafo, dibna ugu laabto Bran iyo Lul. Waxayna ka baxsadeen dukaankii, waxayna tageen bus stationka, halkaasoo dadku weli is weerarayaan. Labadooduna waxay isku dayeen inay si hoos uga tallaabaan, balse nin ayaa jidka u gala. Sidaa darteed waxa ay hoosta ka maraan bas si ay uga baxsadaan. Waxayna arkaan baabuur ay dad caadi ku jiraan oo u gacan haatinaya. Markaas ayay sugaan fursad ay ugu ordaan si ay u galaan. Darawalku waxa uu sheegayaa in basku shaqaynayo, balse furayaasha banaanka ayay u dhaceen. Cidina ma rabto inay soo qaado. Bran ayaa orod u baxdo, waxayna si dhaqso ah u soo qaadaa furayaasha, balse markay doonayso inay dib ugu laabato baska, laba nin ayaa dib u jiidaysa. Lulna waa ooynaysaa iyadoo hooyadeed gacanta ku hayso, laakiin ugu dambeyn rakaab kale ayaa soo baxaya ayagoo la dagaalamaya ninka si ay u badbaadiyaan. Branna waxay si degdeg ah u laabtay gabadheeda, waxayna furayaasha siisaa darawalka si uu gaari u kaxeeyo, iyagoo daawanaya rakaabkii oo la dilayo oo lagu dilayo banaanka. Nasiib darro, basku ma soco karo masaafo fog sababtoo ah wadadii waxaa dhooban gawaari tiro badan oo dadkii lahaa ay ka carareen. Sidaa darteed Bran iyo Lul waa inay lugayaan. Daqiiqada kadib waxa ay gaareen hotelkoodii, waxayna halkaa ku arkeen meydad. Markii ay hore u socdaan waxay arkayaan nin iyo haweeney dagaalamaya, kadibna ninkii ayaa ku socda. Bran waxay adeegsataa farsamo ay isaga difaacayso, waxayna dib u riixdaa ninkii. Weeryahanadii nin kale ayaa kasoo muuqda dhamaadka. Bran waxay ku dhufataa dhalo, waxayna Lul la gashaa qol si ay u badbaado. Markay daaqada ka eegaan waxay arkaan magaalada dhan oo dib qabsaday. Branna waxay isku dayaysaa inay isticmaasho taleefanka qolka, balse isna ma shaqaynayo. Dhinaca moolka, Jack wuxuu dhex socdaa gudaha isagoo arkaya shaashado jaban, wuxuuna naxayaa markii uu ogaado haweenaydii bahalkeed inay iska furto xarigii, welina ay raadinayso. Waxay istaagtaa gidaarka uu dhiigga kashumayo, kadibna way dhex martaa. Jackna wuxuu go'aansadaa inuu raaco. Albaab qarsoodi ah ayaa furmaya, wuxuuna si toos ah u tagayaa bus stationka. Baska oo markaas u muuqdo mid maran, markii uu kor u fiiriyo wuu ku argagaxaa markuu arko bahal weyn oo dusha ka saaran dhismaha. Bahalku waxa uu socdaa Jack, wuxuuna burburiyay dhammaan basaskii. Jackna waxa uu ordayaa sida ugu dhaqsiyaha badan. Bahalkuna waxa uu burburinayaa dhismayaasha si uu u gaaro. Markuu Jack marayo meel cidla ah, wuu ku xayirmaa, wuxuuna arkaa dhismayaashii gadaashiisa oo dumaya. Sidaa darteed ma laaban karo. Si lama filaan ah, albaab ayaa furmaya. Jan ayaana Jack gudaha u jiidaya, waxayna tagaan gurigii Jan oo macalinkiisa joogay. Janna waxa uu sharaxayaa inay joogaan meel kale, taas oo ah meel u dhaxaysa raaxada iyo ciqaabta, waana meel loogu talagalay nafaha lumay. Jack waxa uu furayaa albaabka ciqaabta, wuxuuna dhibaato ku soo daayaa dhulka. Qofkii Marge u adeegsatay arrintaas waxa uu ahaa aabaha Jan oo sixroole ah, waxa uuna doonayaa inuu noqdo mid laga cabsado. Maadaama uu Jack furay albaabka, wuxuu sidoo kale leeyahay awood uu ku xiri karo, taasoo ka dhigaysa ilaaliyaha iyo nasiibkiisa, sababtoo ah waxa uu dhashay habeen dayaxa. Hooyadiina waxa ay dhimatay markii uu dhashay. Jackna ma fahmayo waxyaabaha ay ka hadlayaan, wuxuuna ka fikirayaa qoyskiisa oo kaliya. Jan ayaa u sheegaya haddii uu albaabka xiro inuu badbaadin karo qoyskiisa iyo dunida, waxayna si degdeg ugu baahan yihiin inay dhaqaaqaan maadaama uu bahalka xoogaysanayo. Markasta uu qof cuno, tallaabada ugu horeysana waxa waa in Marge la helo. Jack iyo Janna waxay bilaabayaan raadinta. Janna waxa uu faahfaahinayaa sheekada. Aabihii waxa uu ahaan jiray harib aad u damac badan, wuxuuna xaday kitaabkii sayidkiisa. Sheekadan way istaagay markii Jack arko haweeney saaran saqafka oo cunaya bahalo. Janna waxa uu leeyahay waqti ma hayo, laakiin Jack wuu ku ordayaa si uu u badbaadiyo haweeneyda. Wuxuuna qaataa bir dheer, wuxuuna gaarayaa saqafka halkaas oo bahalo badan joogaan. Si dhaqso ah ayuuna u garaacayaa mid ka mid ah. Markaas wuxuu eegayaa haweeneydii, wuxuuna garanayaa inay tahay mid ka mid ah dadkii waxyeeladu gaartay. Iyaduna way oonaysaa iyadoo xanuun dareemaysa, waxayna ka qoomaynaysaa inaysan la hadli karin saaxiibkeedii hore oo ay qiyaantay. Tanina waxay caddaynaysaa sababta ay nafteedu uga xaniman tahay meel dhexe. Markaas ayuuna bahalkii weynaa soo muuqdaa, wuxuuna bilaabaa inuu burburiyo dhismaha. Jackna waxa uu isku dayayaa inuu la cararo gabadha, balse bahalkii wuu qabtaa wuuna cunaa. Markii uu bahalku baxo, Jack waxa uu imaanayaa Jan isagoo u sheegaya in xitaa aysan ogeyn gabadhu inay dhimatay. Markaas ayuuna xasuusanayaa qaraxii moolka, wuxuuna ogaadaa inuu asigu hore u dhintay. Janna wuu xaqiijinayaa. Janna wuxuu sheegayaa in naftiisa ay noqotay inay mid luntay sababtoo ah shaqada ayuu ka doorbiday qoyskiisa, laakiin dhammaad ma ahan. Jackna wuxuu noqon karaa dhulka haddii uu helo jin uu ku dego. Iyagoo socda waxay arkaan bahal baalal leh oo daba socda, waxayna u cararaan dhismo kale halkaas oo ay ku arkeen bahalo kale. Bahalkii daba socda wuu ku harayaa markay bahaladu weerarayaan. Janna waxa uu adeegsanayaa ul iyo xirfadiisa dagaalka si uu uga hortago, waxayna u ordayaan dabaqa kore ayagoo galaya tiyaatarka ay bahalo kale buuxiyeen. Waxay si degdeg ah u ordeen meel gaar ah shaashada hortiisa si uu Jan u furo albaabka, si hal ilbiriqsi gudaheed ayagu noqdaan dunida dhabta, halkaas oo aysan bahaladu imaan karin la'aanta jin. Jackna waxa uu isku eegayaa muraayada, wuxuuna ogaanayaa inuu ku jiro meydka Eric, waana mid aad u xanuun badan. Jan wuxuu siinayaa bistoolad qadiimi ah oo rasaas gaar ah soo saartay iyo midi, labaduna waa hubka kaliya ee lagu dili karo Marge. Dhanka kale, Marge waxa uu qabsaday jinkii. Jackna wuxuu si fudud u galayaa qolka hoteelka Bran. Qoyskuna way walwalsan yihiin, laakiin Marge ma yaqaano sida loola hadlo, wuxuuna si aamusnaan u eegayaa muraayada. Lul waxa ay weydiinaysaa su'aalo badan, markaas ayuu Marge soo saarayaa boonbilo gubtay ee moolka si lama filaan ah. Taleefanka qolka ayaa bilaabay inuu yeero. Marge-na farxad ayuu dareemayaa isagoo qoraal qoraya. Markii Jan iyo Jack soo galaan, Marge iyo qoyskiisa ma joogaan, kaliya boonbila ayaa meesha yaala. Janna wuxuu helayaa qoraalkii uu Marge ka tagay, halka uu Jack maqlo Lul caawinaad dalbanayso. Markii uu daaqada eego, waxa uu arkayaa Lul oo ku jirta meel u dhow, wuxuuna
wuxuuna si dhaqso ah uga baxaa hoteelka. Baran iyo Luulna way ka baqayaan isaga sababtoo ah waxay u arkaan irad. Tani waxay Marge u sahashaa inuu Jack dhabar ka garaaco oo dhulka dhigo. Marge wuxuu Jack u sheegayaa inuu noloshiisa iyo qoyskiisa xadi doono. Jack wuxuu caynayaa Marge si uu uga careysiiyo, wuxuuna si lama filaan ah uga baxsadaa. Dagaal ayaana bilowda, labadooduna way iska raacayaan si xun. Markuu Jack isku dayo inuu adeegsado bastoolada qaaska ah, Marge ayaa si dhaqso ah hubka uga dhiga, waxayna labadoodu ku dhacaan barkada. Dagaalkan wuxuu u gudbaa biyaha dhexdooda. Jackna waxa uu soo saaraa mindidii qaaska ahayd markuu doonayo inuu ku dhufto Marge. Baran ayaa bastoolada sixirka ah ku taagaysa iyadoo kula joojiya. Labadoodu waxay sheegayaan inay yihiin Jack dhabka ah. Baranna ma garanayso midka runta ah. Luul ayaa weydiinaysa calaamada sirta ah ee iyada iyo aabaheed wadaagaan, taasoo Jack samaynayo isagoo ku jira jirka Eric. Baranna waxay rasaas ku dhufataa Jack, nasiib darro taasoo keentay inuu dib ugu laabto dunidii kale, halkaas oo bahal weyn ku cuno. Dunida dhabta ah, Marge waxa uu sii isticmaalayaa jirka Jack, wuxuuna ka qaadayaa bastooladii Baran. Luulna waxay adkeynaysaa inuusan ahayn aabaheeda dhabka ah. Si lama filaan ah, albaab dhiig ah ayaa furmaya derbiga. Marge waxa uu leeyahay raaca. Jan ayaana badbaadinaya ruuxdii Jack, welina waxa uu hayaa warqadii uu Marge ka tagay. Waxaa la ogaanayaa inuu Marge xiriir la lahaa aabaha Jan, kaasoo siiyay tilmaamo ku saabsan meesha lagu dhigayo xafladda, albaabka dhibka iyo balaayada. Labadoodu waxa ay raacayaan tilmaamaha, waxayna helayaan guri cidla ah oo ku yaala kaynta, halkaasoo dab weyn ka baxayo. Taasina waa calaamada albaabka balaayada. Dunida dhabta ah, Marge waxa uu halkaa keenayaa Baran iyo Luul. Halkaas waxaa jooga koox dad maskaxda laga qabsaday iyo ninkii wejiga daboolnaa oo ahaa aabaha Jan, maadaama bahalkii weynaa weli ag joogo. Jack iyo Jan si taxadar leh ayay u dhex marayaan ilaa ay helaan meel sax ah. Janna waxa uu furayaa albaabka cusub. Wejin waxa uu kor u qaadayaa jirka Luul, wuxuuna isku diyaarinayaa inuu dilo si uu u dhameeyo xafladda uu boqorka isaga dhigi doono. Balse Jack ayaa soo farageliya. Dagaal ayaana bilaabmaya. Kooxdii raacsanayd waxa ay weerarayaan Jack, balse isagu waxa uu adeegsanayaa xirfado dagaal iyo midi qaaska ah si uu mid u dilo. Marge wuu soo dhex galayaa dagaalka, waxa uu isku dayayaa inuu toogto Jack, balse markii la isgaraaco ayaa hubka laga saaraya. Intii raggu dagaalamayeen, Baran waxa ay ka baxsatay ninkii hayay, waxayna qaadatay bastooladii. Waxay rasaas ku dhufataa gacanta Wejin si ay uga hortagto inuu dilo Luul, balse xubin kale oo kooxda raacayaasha ayaa ku boodaysa, waxayna ku dhacdaa dhulka. Baranna waxay qaadataa mididii dhulka taalay, waxayna ku dishaa ninkii. Jackna wuxuu ku tuurayaa mididii nin kale oo raba inuu qabto Baran. Marge waxa uu haystaa midi, wuxuuna si xun ugu dhuftaa Jack ilaa ay Baran bastooladii ku tuurto ninkeeda, taasoo Jack siisay fursad oo ugu dambeyn uu ku toogo karo Marge, waxaana isla markii loo qaadayaa dunida kale, waana la cunay sixroolihii iyo bahalkii weynaa. Markaas Jan ayaa ka soo muuqda hortiisa Wejin si uu uga mashquuliyo. Jackna waxa uu ka toogtaa dhabarka ka hor inta uusan dhiman. Wejin waxa uu sheegayaa in habka kaliya ee albaabka lagu furi karo uu yahay Jack inuu dhex maro. Janna waxa uu sheegayaa inuu rajeynayo hab kale, balse uusan jirin. Jack wuu aqbalayaa si uu u xiro albaabka, wuxuuna u tagayaa qoyskiisa si uu u macsalaameeyo, isagoo ka cudur daaranayo inaanu hore u joogin. Wuxuuna siinayaa habtii ugu dambeysay. Kadibna waxa uu ku socdaa albaabka oo holcayo, jirkiisuna wuu gubtaa markuu gaaro dhanka kale ee albaabka. Taasina waxay xayiraysaa albaabka. Dunida dhabta ah waxa ay ku noqotaa caadi. Baranna waxa ay Luul geynaysaa guriga ayeeyadeed. Intaas ayuu ku egyahay filimkeenu. Waa ku mahadsantahay daawashada.